ayaa inta la hubo galabta ku geeriyooday roob dabaylo iyo danab wada socda wata oo ka da'ay deegaanka Qoolcade oo ku taala koonfurta magaalada Hargeysa. Labada qof ee dhintay oo kala ahaa hooyo iyo ilmo yar waxaa qofka dumar ah uu danabka ku haleelay deegaan wax yar u jirta tuulada Qoolcade halka ilmaha yarna uu isna tuuladaasi ku dilay danabku. dhinaca kale roobkan dabaylaha wata ayaa waxa uu jiingadihii ka qaaday guryo badan kuwaasi oo soo gaarsiiyay khasaare baaxad leh. Ismaaciil Maxamed Diiriye oo ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada Hargeysa oo xilligaasi uu roobku da'ayay soo gaadhay tuulada Qoolcade ayaa ka warramaya waxa dhacay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Annagoo Qoolcade marayna oo agagaarkii Qoolcade ku soo dhawaanay bankii gaar ahaan bankii Qoolcade ayaa waxaan helay roob aad u weyn. roobkii weynaa ayaa wuxuu sameeyay danabkaasi wuxuu ku dhacay ilmo yar. ilmihii yaraana wuu dhintay, Allah u naxariisto. dabeedna waxaan soo gaadhnay magaaladii Qoolcade laftigeedii. kadib markii aan Qoolcade soo gaadhnay ayaanu dadkii wareysanay, waxay noo sheegeen inuu jiingadiina ka qaaday dabayl uu lahaa, ilmahaana lagu yaacay oo uu geeriyooday. Ilaahay u naxariisto, reerkiina samiriye imaan Allah ka siiyo. arrintaasi markaa ay dhacday, jiingadii oo dhan ay ka qaadeen oo jiingada guryo fara badan baan waxaan indhaha ku arkaynay inuu jiingadihii oo dhan ka qaaday. markaa arrintaasaa dhacday, annaguna dee goobtii waan ku sugnayn. markaa saasaan intaasaan idin sheegay. Assalaamu calaykum.